بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شركتونك بارلمانka mudanayaasha golaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sida marti sharafta iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland meel ay joogaan ba guud iyo dibadba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحي شرفه إن المانت هوري معضو لبضا القرى وكيل هذا يقولت له يمرتزا كلا يسر السبعة وأنا كان كتشيديو خطبة دي دستورية هاي لو كوني يكويرات ولا ليال sanadkii tagay 2020 wuxuu la kowsaday xanuuno aan adduunka hore loogu arag oo galaaftay marka caalamka dhan la eego 2 milyan iyo badh ay u dhinteen malaayiin kalena jiifto oo ku dhacay waxa ilaahay mahadiya inaga Soomaaliland eragiisa marka ahaa noo bixinay buu ilaahay noo aqbalay dhibaatadiisu way nagu yaray marka loo eego adduunka waxa gaaray dhowr iyo 50 qof baa inaga dhintay iyagana Allah u naxariisto dad aan tiro badnayn marka loo eego caalamkana uu ku dhacay oo qaarimka oo bukaan kuwana Allah caafiyo hase yeeshee waxa laga dhaxlay waaya aragnimo oo ah in la helay dawo ama talaal laga hortago adduunkuna aad isku mashquuliyay walaalayaal sanadkan Soomaaliland wuxuu ahaa sanad nabadgelyo ay gaadhay oo ay guurad badan u soo hoydeen sanadkii tagay mandaqadan aynu ku noolahay iyo caalamkaba waxa ka dhacay dagaalo lagu reeqday oo adduunka meelo badan ka dhacay dagaaladaasi adduunka ka dhacay waxay muujiyeen saameynta tiknoolajiyadu ku leedahay dagaalada adduunka waxaana dhala rogtay wajiyadii siyaasadeed ciidan iyo dhaqaale adduunka walaalayaal Soomaaliland sanadkan wuxuu ahaa sanad ay ku guuleysatay inay ka heshiiso qabsoomidda labada doorasho ee isku sidkan baarlamaanka wakiilada iyo dawladda hoose waxaan ku soo ururinayaa sanadkan Soomaaliland waxay tirsanaysaa hadmadiisii hore ee xanuunka ahayd oo haratiisu inay qaboobeyn oo Ilaahay naga nabadgeliyay inaga mar haddii daldegan yahay oo nabadi jirto adduunka oo dhan wuxuu u tartamaa oo hore u qaada waa dhaqaalaha marka la eegayo dhaqaalaha Soomaaliland marka adduunku isu tirsanaya dhaqaalayaasha daluurintu dhaqaale leeyahay waxa la hubaa Soomaaliland waxa lagu tiriyaa dalalka dhaqaaloodu yar yahay ama aanu buurayn sidaa ay tahay haddana dhaqaalaha Soomaaliland sanad walba sanad ka dambaysa uu kobca oo waxba ku kordha taasina waxay ku timaadaa dadaalka shacbi weynaheena xukuumadihii iska dambeeyay baac mushtarkeena oo sameeya maalgashi qurbajooggeena oo sameeya dhaqaale dadban qoysaska ku masruufaan iyo maalgashi ay dalku sameeyaan marka inta la isu geeyo sanad walba dhaqaalaheenu uu kordha dhaqaalaha dalkeena waxa wada dhexaad u ah 4 tiir oo kala ah dakhliga u soo xorooda hay'adaha dawladda oo kastamada toban ka soo heyto baaci mushtarkeena oo sameeya maalgashi hantidooda dalka ku maalgeliya shaqaabo ku sameeya haba yaraatee taageerada dadban ee ay leeyihiin qurbajoog iyo maalgashiga shisheeyaha iyo deeqaha inaga soo gaara dalkan saaxiibkana
dakhliga miisaaniyadda ee xukuumaddu maamushaa boqolkiiba 10 buu ka yahay dakhliga guud ee dalka GDP waxa dalku dhaqaale soo saaro dawladdu boqolkiiba in ka yar 10 ayay maamushaa inta ay maamusho dawladdu boqolkiiba 50 iyo badh waxay ku maamushaa hay-adaha amniga waad ka garan kartaa halkaa dalka boqolkiiba 50 shaqaale iyo amni geliyay 48 ka soo haray waxay u qaybsamaan baahiyaha badan ee dalka oo ay ka mid yihiin baahiyaha asaasiga ah sida tacliin biyo caafimaad wadooyin iyo wax la mid ah ictiraaf raadin deeqaha dibadda inaga soo gaaraa waa kooban yihiin waxaana u badan yihiin mashruuciin tijaabo ah waxaana ugu wacan dowladda xamar ka dhisan oo lugta jiidisa Soomaaliland dhaqaaladeedu inuu horumaro caalamkana inagala dagaalamaysa in dhaqaalo buurno toosan helo walaalayaal markaynu eegno dhaqaalaha dastuurka ee dalka waxa qeexaya qodobada 11 ee dastuurka oo ay tahay in dhaqaalaha noqdo suuq xor ah in dhaqaaluhu aanu noqonin dalku aanu qaybsamin in hoodana oo lacag dhaqaal barwaaqadu ku ururto iyo in sabool aad u ka yaala waxa kale sheegaysaa in iskaashadaan sharcigaas wuxuu sheegay in iskaashadaan hantida gaarka ah iyo ta guud qodobka 12aad oo isna ka hadlaya dhaqaalaha sida loo maamulayo oo dhulka ah oo dhulka dhammaanay isugu dhaqaalo dhulka ku soo noqdo wuxuu tilmaamayaa inuu dhulku yahay hanti guud oo ummadda ka dhaxaysa meel u jira mas'uuliyadiisa maamulkiisa ay dawladdu leedahay tan iyo intii aynu dib ula soo noqonnay xorriyaddeena dhaqaalaheena xukuumaddu ay maamushaa wuxuu ku tiirsanaa kastamyada cashuuraha wixii kastamka soo mara ee dibadda inooga yimaada oo kaliya markii COVID-ku dhacay waxa soo baxday inaanu ahayn cashuurta kastamyadu wax qaran isku halayn karo oo dawladdu ay isku halayn karto waayo markii caalamka kala xidhmay ee dal waliba barakibtiisa xidhay kastamyada way xidhay soo jiraan cashuuraha aynu qaadnaa ee barigu boqolkiiba waa 22 halkaa waxa ka muuqata dheelitir la'aan ah oo ay ahayd inay dhaqaalaha inta badan ka yimaado dalka gudihiisa iyo cashuuraha bariga oo ayna ku tiirsanaan wax badda iyo cirka ka imanaya ama xadka ka soo gudbaya walaalayaal sanadkiina dhaafay waxa dalkeena la soo gudboonaaday carqalado waaweyn COVID-19 oo inaga hadduu safar loo noqday kala xidhay isu socodkii baaxinta adduunka iyo wixii dawladda cilaaqaad la lahayn oo yareeyay aad iyo aad yareeyay dhoofkii xoolo la joojiyay sababtoo ah xajkii baa la joojiyay koonfurka dartii ayaa xujayadii laga joojiyay xaramkii xoolaha dhoofinayna waa joogsadeen waxa intaa dheeraa ayixii ka dambeeyey ee dalagii oo dhan xaalufiyey sidaa ay tahay haddana dawladdu waxay dhexda u xidhatay in wixii guntiga loo geejiyo waxyaalaha lagama maarmaanka ah ee qaranku u baahan yahay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii tegey waxaa laga maalgeliyey 106 mashruuc oo qiimahoodu dhan yahay 173 bilyan sanadkan imka aynu galnay waxaa loo qorsheeyey in la maalgeliyo lagu maalgeliyo 273 bilyan in sanadkan mashaariic cusub lagu hirgeliyo iyadoo waxa soo duruufo adagna soo kulmeen waa la kordhiyey maalgelintii mashaariicda deeqaha dibadda ee ka hor aynu helnay waxay ahaayeen qiimahoodu 164 bilyan oo Soomaaliland shilin waxa la kordhiyey shaqaalaha dawladda sanadkii inaga tagay 10% saddexdii sano tagayna waxa la kordhiyey 26 tirada la kordhiyey waa 5150 inkastoo xukuumaddu dadaashay oo shaqo qaran dadka laga qaatay ee soo maray badankoodu
haddana waxa ay muuqata duruufaha marayna awgood dadka la qaaday la shaqo galiyay inay yihiin dhibic marka la eego inta shaqada oo aanay boqolkiiba 10 ahayn dhalinyaradii shaqada u baahnay culayska intaa leeg wuxuu u yaallaa sidii loo xali lahaa dhammaan in la isugu tago oo weliba qayb weyn uu ka qaato suuqa xorta walaalayaal iyada oo duruufaha aynu soo sheegi jireen waxaynu ku guulaysanay in shilinka halkiisii ku nagaado 3 sanadood oo aanu dhaqdhaqaaqin isla markaana sicir bararka inflationku uu hoos u dhaco 3.5 boqolkiiba Somaliland waxaa ka jira 4 baan oo gaar loo leeyahay 4 baan lacagta taala ee shicibku dhigtay ee dhigaalkii waa 200 oo milyan waxay deyn u bixiyeen ama mashaariic amaahiyeen 70 milyan waxa lacag dhigaal taala baanankooda 130 milyan oo aan ka qayb galin wareegii maaliyadeed ee wax soo saarka lahaa haddii lacagtaasi ay wareegin lahayd warshadana waa abuuri lahayd isbitaalana waa dhisi lahayd shaqo abuurra way keeni lahayd marka inkastoo duruufahooda gaarka ay yihiin baanankeenu oo korayaan oo dadka la mid yihiin haddana waxaan ku dhiirinaynaa in ay maraan habka ay ku shaqeeyaan baananka caalamka ah ee private oo ah dhigaalka la dhigo lacagta la dhinto 90% ugu yaraan inay ku bixiyaan deyn oo dib dadka u galiyaan si wax loo soo saaro xagga beeraha inagoo og tallaabooyinkii hore la qaaday sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey machadka cilmi baarista beeraha markii aynu dhowr jeer 3 sano hore kolba meel gelinay mashruuc xaaxi beer wajaale mar walba waxa soo baxday kolba cilad aynaan ogeyn waxa ka mid ah shinida ama seedskii oo isbedelay waxa soo baxay dulin badan oo ay keeneen cuntooyinka la inoo keenay waxa soo baxay abaarihii istaba joogga ah cimiladu ay gediyeen marka waxa loo baahday in si cilmiyeysan loo galo hawsha beeraha marka waxaanu abuuray macadka cilmi baarista oo la rabo wixii aynu maal galeynaa si cilmiyana inuu noqdo goob kasta oo la gelinayo waxaa la hayaa imika oo soo ururiyay 320 nooc oo ah shinidii u ahayd Somaliland asal ahaan cimiladeeda waxaanu abuuri doonaa hadda baanka shinida ama seed bank oo lagu ururiyo dhirta dalkeena ka baxdo oo dhan nooc kasta ay yihiin in la hayo seedkooda si aan dalka dhirtu uga dabar go'in sida hadda ay ku socoto oo imika dhir badan oo ku ugu qoyo badan la leeyahay shinidoodii xanaanada xoolaha maadaama sanadkan horena koofirku aad u joojiyay macaamiishtarkii xoolaha sanadkan dambana hawshoodii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagali lahaa adeegyada bulshada barkood ama hay-adaha wax soo saarka xanaanada xoolaha beeraha investmentka maaliyadoodii u qorshaysnayda wax loogu horumari lahaana waxaa loo wareejiyey inta badan miisaanida doorashooyinka sanadkan sida ay tahay waxay talaaleen 3 milyan oo neef oo ay ka faa'iideysteen 180,000 oo qoys xoolaha ay lahaayeen bay gaareen kalluunka oo ah meesha adduunyada u guuraysa badda meesha badda waxa la dhaqaalaha buluuga ah ee badda oo inaan aqoonteedana lahayn u baahannahay in xoog badan saaro waxaan imika la bilaabay muddo dheer kadib oo sanado badan loo hay-adaha qaar laga codsaday ay sanduuqa lagu caawiya laga waday dekeda maydh oo hawsheedii bilaabantay oo ay ku baxayso 5 milyan oo lacagta Mareykanka ah waxaa dhammaaday wejigii koobaad ee dekeda berbera waxaa dhammaaday 400 mitir ee dekeda hawaadhay haddii aan la yidhaahdo juun awalkeeda sida la filaayo
ilaahay kiisa waxa bilaabi doonta in maraakiibtu ku soo xidhaan oo uu kordho xawliga dejinta konteynerada iyo bagaashka ay wadada ka duumika intuu yahay boqolkiiba 760 baa ku kordhi doona Juulaay marka la yiraahdo inta ay laga shaqaalay dakhligu ka soo galay waxa kaloo yaray wax xusnaada ah inta in leeg oo samxada oo dariiqa yar ee dhubara imika la wado ee berberiya u dhaxeeya wajaale oo noqon doono baabuurta culus wada ayso oo yahay waxa loo baahan doonaa wadooyin badan marka horeysa waxa ka saaran qaatay in hore loo bilaabo wadada burciyaha bishaas ku xidha si loo kala duwo xamuulka dekada ka soo baxaya iyo baasashariska dalka isku xidhaya oo hawl degdeg ah inoo taalo waxa kale oo u baahnaan doonaa waxa kale oo qorsheedu sugi doonaa xamuulka ka baxaya dekadu inuu meelo badan oo xadka ka baxo wadooyin badan oo u furan dalka jaarka nahay sabayntooda iyo dawladda jaarka inuu kala heshiiyo si aanay u noqonin culayska dekadu mid xidhma oo wada qura ma xaji karto 450 kun oo container guridooda iyo soo celintooda hawsheeda oo garan kara sanadkii gaadiidka u baahanayso wadooyinka u baahanayso meelaha ay ka baxayso iyadoo waa qorshayaal degdeg ah marka nagu soo kornay oo gacanta lagu hayo haddii aan la yiraahdo sanadkan soo socda waxaa la furi doonaa Juulaay ama Sebtembar ta dhaxaysa waxa hawlgeli doona garoonka caalamiga ah ee Berbera oo noqon doona garoon baasanjar iyo xamuulba ay iman doonaan diyaaradaha qaadka weyn oo ugu culculistay iyagu oo intay ka qaadaan Berbera xamuulka u gudbin doona Afrikada kale hadda meeshii ay macaamil yeeshaan dadku ismihii wadada Berbera corridor halka waqtiga loogu talagalay ka gaadhay sabab kasta haatee laakiin hadda intan dambe xawli uu ku socdaa isaguna waxaan isagana haddii la yiraahdo sanadka soo socdo 20 qaybtiisa hore u dhamaado waxaan laga xirignay iyadoo oo ay iyadoo arkayno duruufaha ay u baahan doonno wadooyin fara badan si la isku xidhay magaalooyinka gobolada waaweyn bariga galbeedba oo qorshayaal badan oo markii hore barnaamijka xisbiga ku jiray ah haddana kolba kii la qaadi karo loo bilaabayo la isku xidhay oo la bilaabaya wadada isku xidhay loo yacadeeyo warama oo maalgelinaya banka Afrika hadda waxay bilaabeen sahamintii ama survey oo qaadan doona muddo sanad ku dhawaada marka survey dhamaada insha Allah taasina way bilaabi doontaa waxaan filayaa in sanad iyo 2 sano gudahood ku dhamaato waxa kale oo bilownay wadada isku xidha Burca iyo Oodweyne haddii aan la yiraahdo oo iyadana imika hawsheedii la bilaabay oo ay filayno inay muddo gaaban ku dhamaato waxa dhamaatay oo 200 kiiloomitir oo qori ka hareen wadadii Burca Ceergaabo saddex bilood soo socota haddii aynu ku dhamayno sanadka bartankiisa waxay u wareejin doonaa muddo xoogeeda iyo xoogeeda iyo quwadeeda wadada dadka shaqeeya waxa loo bedeli doonaa inay isku xidhaan Burciyo Berbera si loo yareyn karo culayska ku dhacaya wadada Berbera iyo xamuulka ka soo baxaya waxaa la dhisay wada isku xidha madaarka iyo magaalada Laascaanood mudanayaal iyo marweyn dawladdu guud ahaan waa amni sugaha dalka amniguna waa ka ugu culays badan isla markaana dawladdu waxa ku soo baxsatay inay noqoto shaqa bixiyaha ugu weyn ama shaqa galiyaha dadka ugu weyn runtii taas oo u baahnayd in suuqa xortii sida caalamka ku dhaqma suuqa xortii oo suuqa xortii qaybta badan qaato haday warshaday tahay iyo haday maalgelin tahayba waayo lacagtii waxay dalka inta soo gashay intii badan waxa ku jirtaa suuqa xorta ama baa mushtarak haday dawladdu noqoto adeeg bixiyaha ugu xoog weyn oo ah hadii dawladdu tacliintii iyo waxbarashada caafimaadkii iyo biyihii laga rabo inkastoo oo ay suuqa xorta baa mushtarak ku jiraan haddana waxaynu u baahanahay baahida dalkeenu u yaala ee arrimaha asaasiga ah inay aad iyo aad loo kordhiyo iskaashiga baa mushtarka iyo xukuumadda arrimaha ku saabsan mujtamaca
oo qolo walba dhaqaale ahaan qayb ka saarantay adeega bulshada maadaama aynu hore u sheegnay oo miisaanadii aynu gelin lahayn adeega bulshada in badan u leexinay miisaanada doorashooyinka wasaaradda waxbarashadu sanadkii hore waxay u xidhay tababar 600 iyo 400 macallin bay u xidhay tababar kor u qaadisa sanadkanna waxaa ku jira imika oo bilaabmay in tayadooda la wanaajiyo 670 arday macallimiintaasi waxay u badan yihiin distriyada iyo degmooyinka fog kuwii ka howlgelayay dadka imika la tababarayana waxay u baahan yihiin ardaydii shaqada qaran soo martay ee lagu shaqaaleeyay wasaaradda sanadkan wasaaradda tacliintu waxay dhistay 670 iskuul oo cusub ayay sanadkan qaarkood way dayactirtay laakiin waxa dayactir ay dhulka ka soo qaadeen oo dayactir dhaawac weyn aad u gaaray ayay hirgelisay wasaaradda caafimaadku sanadkan waxay u adeegtay 1 milyan iyo bad bulshada kamida ayay u adeegayeen caafimaadka ee dowladda gacanta ku haysaa waxaa kordhay 12% dadka ay u adeegayso isbitaalada dowladda gacanta ku haysaa waxaa xusid mudan inay fara badan yihiin isbitaalada gaarka loo leeyahay oo hawlo badan qaranka u qabtaan hase yeeshee waxaynu u baahanahay in hogaaminta caafimaadku meel qodob ka ahaado waxaynu haystaa dhibaatooyin fara badan oo la xiriira caafimaadka oo u baahan maamul isu geeyo dhakhtarro badan iyo dad gaar ah ayaa lacag badan iyo hanti ay leeyihiin geliya caafimaadka oo aan la hubin inay ka heliyeen kale inay ka soo saari karaan kale iyagoo dadkii gaarka ah lacagta intaa la geliyaan dowladuna miisaaniyad weyn gelisa caafimaadka oo labaduba dhaqaale qaran isku tagay yihiin intaa waxa ka badan inta ku dhacda qofka buka iyo shicibka gaarka ah marka waxa weeye lacag caafimaad ka socota dadkii gaarka ahaa antilaashi gaarka ahaa maalgeliyay iyo tii dowladda oo yara baxaysa iyo dadkii bukay oo iyaguna inta in leeg marka loo qaybiyo keeshiyada ku baxaysa in ka badan bixiya tusaale soo qaadanayna walaalayaal caafimaadka waxa inagu soo kordhay cudurro hore inoogu yaraa oo ay keentay isbeddelka nolosha dadkeena dhiig karka kansarka macaanka xanuunka la yidhahdo macaanka waxa intaa dheer xanuunkan buroolka la yidhahdo dumarka ku soo batay oo inantii oo laga yaabo inay 5 jirta 6 jirta oo magaalooyinka buraa taalo deetana ay dhibaato ku timaado waxa laga yaabo buraasi inay qaar ku dhalaan oo aan dhibaato lahayn laakiin waa phenomena imika aynaan hore u ogaan jirin ilameynaan ogaan jirin hore dumarka loo ciidamo ogaan jirin marka xanuunadaas oo dhan waxay nagu keeneen welwel fara badan maxaa dhacay marka waxa dhacay dadkeenu inta badan kuma nagaadaan ma aaminaan dhakhtarradeenna ama private ha ahaadaan ama kuwa dowladda ha ahaadaan xanuunka sida u sheegaan iyo waxay ka baaraan haddana waxaa loo leeyahay 99% qofku markuu dibadda u baxo xanuunkii loo sheegay iyo tilmaamihii looga sheegay halkan ama private ha siiyo ama ka dowladdu ha siiye inay isku mid noqdaan oo fayrku la tagay kaas cudurku ma ku hayo wax ka qabashadii waa timid dadku waxay aaminsan yihiin dhakhtarradeenna private ah ama dowladdu haadee inaanay lahayn awoodii ay ku daweynayeen waxaase la hubaa 99% maanta qalabka aynu hayno in uu yahay mid gaari kara haddii dhakhtarada loo baahdana isku maamulkii dhakhtarradeenna inaynu hubinaa wanaagsan maxaa dhacay wax walba waa suuq xor ah wax waliba baa misal waa suuq xor lama taaban karo caafimaadku waa xor lama taaban karo tacliintu waa xor lama taaban karo marka waxa weeye waxyaalo bini aadmi hal bowlaha u ahaa ee caafimaadka dhakhtarkii haddii aan jirin tala midaysan oo raaco isku yimaada waa la lumaya sanadkan inta soo martay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dhakhtar dibadda qabatay waa shan kun lix kun waxa laga yaabaa inta in ka badan ama la bilaabo inaan soo marin ba wasaaradda caafimaadka marka dadka la eego lix kuma haduu ka soo qaado oo aad 10 kun oo doolar ku fata kharash ka baxay India Turkiga bay tagayeen de sanadkii waxay noqonayaan 60 milyan oo doolar 60 milyan oo doolar waxaan ku dhisi karnaa ama ugu yeeran karnaa caafimaadka dhakhaatiirta iyo qalabka adduunka ugu sareeya marka maxaa dhacay hantidii waynu haysanaa taladii maamul ayaynu u baahan isku xidhno waxaynu ka fahamnay khalad suuqa xorta dowladdu dastuurka faraya ma fargelin karto suuqa xorta laakiin suuqa xorta facilitator dowladdu wayna kala hagtaa dadka
hadduu baacmushta leeyahay hadduu tacliin hadduu caafimaad dowladdu weyna kala hagtaa oo shuruucda aqalada ka soo baxaya ayay xukuumadduna fulinaysaa maxkamadduna kaga qaadaysaa waa inuu sharcigaas dadka kala hagaadee laakiin hadduu dhakhtarkii brifka ahana cid xugta waayo kii dowladda ahana meel maro qofkii bukaankaana meel dhexa ku lumo war khasaareenisa uu ku baaba'aya markaa sharciyadiina waa la hayaa baarlamaankiina waa joogaa xukuumadduna waa fulinaysaa dadkii aqoonta dhakhaatiirta brifkaana way joogaan isugu tag baynu u baahannahay qofkii oo dhiig baxay qofkii waxaa la geenaya cisbitaal gaar ah waa lala soo rafanaya xanuunkiina waa kusii fidaya kharashkiina wuu ka baxaya ku kalaa la geynaya 9 egsray oo u baahnayn baa la marinaya wuu ka soo baxaya markuu dhamaado waxa la leeyahay ka dawladda geeyay iyaga Australia waxa leeyahay kabacdi waxa la leeyahay dhakhtaradina guduhu waxbay ka waayeen hal la qaado qofku uu dhinto cudurku ku sii fiday waa mar kala dhacay dhaqaalihii halkan uu kaga baabay marka la doonaya aqli bay baahan tahay dawladdu way furan tahay inaan loo baarlamaan u soo jeedino dadka u soo jeedino inaan xoogaa mideynay aqliga ayaa aqoonta taa caafimaadka intaasaan ku dhaafayaa xagga biyaha sanadkan waxaa la qoday 42 ceelal dhaadheer ceelal badan oo dhowr boqol ka qodan dalka haddana marka biyaha iyo abaaro yimaadaan waa biyo la'aan taa lafteedu waxa la mid ah tan soo sheegay oo kale oo dhibaato badan baa ka jirta marka ceelkii la qodo deegaan baa lagu wareejiyaa 9% meelaha fog oo dhan marka lagu wareejiyo deegaankiina si fiican u maamulaan bil walba dawladda wasaaradda biyaha miisaaniyadda inta loogu talagalay 3 bilood hore waxa ku dhamaataa dayactirka deynabooyinka ceelkii baa la qodayaa deegaan baa laga imanayaa dadkii ama aqoon ma laha ama uma arkaan waxa kharibi kara wixina waa system waa electric waa mechanical hadda imika aynu joogno oo abaara dhaceen dhowr iyo 20 ceel baa wigi u dambeeyay loo qaadayay deynabooyin waxay u baahan tahay inay wasaaraddu gacanta ku hayso ceelasha oo loo tababaro imika 20 qof oo horeeyay baa la tababaray oo ceelasha lagu tababaray iyo deynabooyinka iyo dabka ceelka si loo ilaaliyo inuu tago in ceelka halka lagu hayo waxa laga codsanayaa inay la gaarsiiyo waliba golayaasha dadka deegaamada ka wakiilkatiin inay u fahmaan ceelku inuu u baahan yahay dad gaar iyo aqoon gaar oo inaan ka baxay mar walba maanta u kul ceelasha fadhiya bariga galbeed waa laga sameeyay halka waxa ka jira dhiig bax badan oo farsamo aqoon la'aan waxa la qoday 12 ceelal gaagaaban sanadkii tagay haddana marka ay soo qayrada bilaabanto biyo la'aanta ceelasha waxyaalaha qaarkood waa inaynu ka lahaanaa wax meelyaal oo ra'yaynu ka iska ogolahay abaartu way soo noqonaysaa dalkeenna waa la yaqaanaa 4 bilood jiilaal baa jooga ilaa abiy oo uu soo noqonayo dhaqaana haddaynu dhulka ceelal ka qoday waa ceelasha leelay socda halkan dawladda hore kulmiye abaartii dheerayd iyo culimadii iyo baayacmushtarkii bariga kaalmeed istagay waxay soo iibiyeen bariga oo lacag sida laga wareeyay 8 boodad oo dawladda lagu soo wareejiyay aan la soo wareejiyay 8 iyo 2 lagu dareemay way joogaa taayirka kaba bajaray maalintaana sidii ay u hawlgalayaan ilaa maanta waxaana maamulka marka la xajiyo kala dhawaa wixii abaaraha ee si kale loo isticmaali karo boodahaasi dayactirkooda iyo daruurtooda hawl kale ma galaan xaafadu soo dhaan ma galaan madaxweynaha gurigiisa beelaan ma gali karaan janka gurigiisa waa beelaan ma gali karaan iyo wasiirka toona meel bay yaalano waliba si aano dawladda aad u weyn waxaan wasaaradda diinta iyo waqafta ahay bal idinka nagu aamaado idinka qolay diinta ahay hawlaha gudaha ku karanta wasaaradda hawlaha gudaha dayactirka iyo sameeyntooda iyo darawalintooda la imtixaanay qaar saxay baa leeyahay waxa ilaahay mahadiya markay imka abaartu bilaabantay boodii ugu horeysay oo tagtay laascaanood in imka dalaa bilood shaqeynaysa oo darawalkii waday intuu kiiloomitir socday tahay 2,200 kiiloomitir maalin qulays buu taagay 9 foostay qaada in 10 bood qabtaan waayo waa darawal xilkasa iyo gaarada dayactiray laba kala togdheer ku jira iyaguna imka muddo bil ah inta aan leeg bay socday kuwii kale hadda waa loo kala diray gobolada marka waxaan u baahanahay in ceelasha deegaanada ilaaliyaan dadka u tababaro aynu ogaana inay abaartu ka mid tahay nolosheena marka qura hela dhawaaqana aynaan dhawaaqin inta waxaan ku dhaafay arrimaha bulshada amniga dalka mudanayaan dalku maanta waa amni nabad taamin ku jira waa ilaahay mahadi taana waxa keenay dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba iyo shaqo uu hayo iyo da uu yahayba
waxaa hubaala inuu shacbiga Soomaaliland maanta dhammaantii ka midaysan yahay inuu nabadgelyada ilaashado wixii khilaafana si miyir qabo ku dhameeyo waxa la xurgufaha oo dhan dadka ayaa dhameeyay dawladdu waxay ka ahayd fududeey isugu yeeridda shirka qabashada waxa awoodda iyo juhdiga galiyay wixii oo shirxaay soo dhacay sanadkii dhaweyto oo ugu dhaadhaarayeen kuwii ala cadeeyay waxa dhammaantood lahaa dadka deegaamada oday dumar sheekh dhalinyaro oo ka midaysnaa in wax kasta oo dhibaato jira si nabad loo dhameeyo waana ilaahay mahadi waana talo wanaagsan oo helay guul weyn ku gaadhay difaaca dalka Soomaaliland waxa ilaahay mahadiya inay leedahay awood ciidan oo aan la dhayirsan karin iyo ciidan birlab ah geesiyaal ah waay arag ah naftood horayaal ah soo majeestayaal ah oo maanta nabadgelyada dalka inuu cadow soo hunguriyo ka hiray iyaga xoogoodana dadku ku hurdo baayac mushtarka iyo siyaasadana difaaca ay noo hayaan aan ku wado shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland abaal aan la iloobi karin buu hayaa hay-adaha dawladda hadduu baarlamaan yahay hadday maxkamad tahay hadday fulin tahay dhammaantood wax kasta oo dawladda la bilaabayana mudnaanta koobaad waxa kale ciidamada amniga iyo ciidamada qaranka amniga siisaba caalamka imka waxaan u kala qaybinaa loo kala qaybiyaa waa laba cilmi ayuu kala leeyahay cilmi waa difaaca qaranka waa ka xooga iyo nin walba intuu taalahay mid murduriyale iyo mid dayax wax ka soo tooganaya iyo mid warar haysta nin iyo itaalkii mid waa ka ciidanka u daafacay nabadgelyada dalka ay u daafacay deganaanshaha kale amniga kale waa ka weynka oo waa ka ah dalku muxuu nabad noqdaa markay bulshadu degantays aaminto haddaanay bulshadu deganeyn dalkaasi amni maaha dalka waxa lagu qiyaasaa amniga markaad eegto labada guriga jaarka ah inay wax wada leeyihiin oo is aaminsan yihiin labada magaalo ee isku xiga inay isku mid yihiin oo si sharci wada arkayaan oo si dambiga wada khilaaf wada dejiyaan laba gobol haddaynu si kala laba beelood marka ay ka midaysan yihiin isla ogol yihiin khilaafka bini'aadmiga ilaahay baa abuuray nabad waxay ku timaaddaa markay ogol yihiin khilaafka si loo xalilaayo alxamdulilah inagu inteena dhammaanteen ilaahay wuxuu inuu maraysay diinta islaamka oo ku wada dhaqamo oo sharciga khilaafaadka ay noo tilmaamay qoyska iyo dalkaba iyo sharci kastoo yimaada hase yeeshee bini'aadmigu isagoo oo inta ilaa iyo intii diinta islaamka soo baxday uu haystay oo ku dhaqmayay meel uu joogaba haddana khilaafku maalin buu jiraa dadku la noolyihin khilaaf marka qolo waliba say u xasilayso isdhexgalkeeda ayay ku tahay waxaan u aragnay marka arrintaa la eego in lagu xalli karaayo in bulshadu ay hesho xaqsoor cadaalad taama ilaahun baa gaara bani aadmigu ku dadaalaa inuu cadaalad gaaro laakiin waa bani aadmigu laakiin halba intaad dadashay ku xiran tahay deganaanshaha dalkaaga iyo sogolaashaha marka afar tiir haddii aynu eegno ayaa ah inaynu dadka uga garsooro koow waxa ka ah oo ay ku fadhidaan nabaddu waa cadaaladdana waxa inuu haysaa waaxda garsoorka oo culayska u badan ku dhaca ka soo qaad askariga qofka wax dilaya qabta ka soo qaad ninka dambiga soo ogeeya baaraya ama inta baaraysa qofka dacwadda ogeeya qofka waa dambiilo qarankii iyo dad buu dhibay leh ka maxkamadda gooynaya ee intuu eego wixii loo keenay ku kala jaraya bulshadeena boqolkiiba 90 qof u mahadnaqa qofka gartaa soo ooday haddii tiisa yeel waay ma jiro qof walba uu ka cabanaya way tiisa yeel waay taar bulshada kuma dhaqmayso waxaan hore u lahay inagu aan dawladaha in la yiraahdo inaan ka garsi ma laga helaha ma qaatay hadda way ugu banaayeen laakiin ma waxa taala waxa qaadan karta iyo caaqlay qaadan maayo waana dulmoodin ka qaadiya halkii loo dhintay askariga baa lagu qalbay dadka xilka haya waa la wadaariya ilaa askariga hore soo bilaabo kiiska ilaa xaakimka u sareeyay maxkamadda sare markuu kiiska leeyahay dib u dhaarta waxay u baahan tahay si maxkamaddu inoo aynu helo cadaalad in la shaqeeyo hay'adaha garsoorka waa binaad buu qadami karaa qofkii qadan waa la sax karaa ma hayo waa binaad laakiin boqolkiiba 90 waxa laga yaabaa boqolkiiba 80 inta badan saxiix taas waa
halkeena noo garsooraya haddaba waa yahay garsoorkii nin oo weyn soo taagno waxaanu garsoorka u qaado waan isku raacay haddaba garsoorkii muxuu inoo qaadaya gartu inoo qaadaya maxay noqonaysaa saddex meelood buu binaad buu baahay inoo garqaado kow tawar waxa weeye fursadaha laba fursadood ta dhaqaalaha iyo ta waxbarashada binaadamku wuxuu ku qoraa waxbarasho iyo dhaqaale iska soo marka waxay dadkii dalka waa inuu fursadaha shaqada iyo fursadaha waxbarashada u sinaada waxaanu u samaysanay tii shaqada dawladdu waxay bixiso oo dawladdu imika ta ugu weyn shaqada dadka siisa ama qadarasa bixisa waxa loo baahan yahay oo aan u jideynay oo aanu soo marnay 3 sanadood guddiga qadaraasada waa inay dhisantaa oo guddi adag noqotaa oo wixii iska daba tagtaa waa la kori doonaa laakiin wadaynu helnay oo waynu mahadinay waxa laga rabaa baacmushtarka gaarkiina inuu u maro hantida uu dhisanayo iyo wuxuu bixinayo in loo sinaado oo kaas kale loo maro oo sharciya haddii dalka shirkadda lacagta leh mashruuc ay dhisaysa isagu maamusho kaliya dee dadkii bulshadu waa inuu gaara isagu waa bini aadam meel dhexoo laga waara karo wali jirta la maraa oo loo maraa shaqada shaqada kuma lahayn laba waa tacliinta dawladda wasaaradda shaqagelinta iyo hay'adda tacliinta labadaba sharci waxay ku qabaan in tartan furan oo aqooneed oo xaq loo maro wixii ama course la tagayo ama qofku shaqo ku galaayo shaqo dawladda uu dooranayo inuu aqoonta ku meel maro ayay labadaba mariyaan oo idaacada laga baahiyo TV-ga laga baahiyo si aan qarsoodi u noqonin oo qofna walaado labada hadii la helo labada markay sugna dalka cadaalad oo helay ta saddexaad waxa weeye in dadka nugul ama la xaadla ama faqriga ah ama si kale u taag daran in xukuumaddu ay awoodsiiso oo ay caawiso oo aan lagaga tagin dadku waa nugul oo qura dhibaatooyin badan baa jira dalkeena inta badan waa nugushi afkana inta badan oo laga yidhaahdaa laakiin xukuumad ahaan iyo dad kale waxay naga saaran inaynu hubinno in dadkaasi wixii ay mudnaayeen la gaarsiiyo xukuumaddu dhib kasta culays kasta oo saaran waxay qaaday sanadkii hore inay dhaqaale taageero gaarsiiso 200 kun oo qoys oo danyar oo gobolladoo dhan waxaanu ognahay dhaqankeenu inuu hablaha iyo nimada u kala exdo oo hablaha intooda badan iskaba dhaash xitaa kuwa laxaadka qaba kuwa laxaadaanaya ku dhacdo aan ciidana daryeelin guriga lagu xiro wasaaradda shaqada shaqagelintu iyo qoysku sanadkii dhaweyto waxay tababar u furtay oo xirfadaha ay ku shaqaystaan ay gaarsiisay 8,976 hablood oo Soomaaliland oo gobolada dhan waxay gaarsiisay deeq raashin in ka badan 70,000 oo qoys oo barakacyaal oo gobolada dhan wasaaraddaasi dhaqaalaha kii dawladda ay u qorshaysay waxa kaloo dheeraa oo inaga caawiyeen dawladaha saaxiibka la ah iyo UN kuba in ka badan dhaqaalaha lagu taageeray dadkaasi iyagana waa u baahnaqayna qodobka saddexaad ee bulshada nageyn kara degid kara ee nabadda lagu helayo waxa weeye maamul wanaag oo ah waxa la maamulayo ama shirkad gaar loo leeyahay ama dawladda haatee inuu noqdo maamul la wada arkayo oo dadku qacsi waxaan ku dadaalnay inaanu hawlgelin hanti dhowraha iyo xisaabiyaha iyo inta ilaalisa hantida dawladda iyo waxay dawladdu maamulayso sanadkii dhaweyto hanti dhowrku wuxuu baaray 270 hay-adood oo dawladda ah inkastoo sharcigu dhigayo shirkadaha waaweyn ee qalabkuna hanti ay yihiin la baara ah wali heerkaa maynaan gaarin waxay ku ognaayeen xukuumadda qudurta ka adkaado 270 waxa la soo eedeeyay 130 mas'uul oo dawladda u shaqeeya oo hadda u eedeysan lunsi hanti qarneed wixii kaga cadaadana ay helayaan waxa la soo celiyay lacag gaaraysa 5 bilyan oo ka maqnay khasnada dawladda mudana yaariye marweyn
in kasta oo aynu ku dadaalay bulshada waxa ay ku nugaan lahayd oo qodobada soo sheegay oo meelahaas oo dhan la abaaray si bulshadu nabad ay ugu degno ugu nagaado haddana wali fardiyada dalkeena ka dhacaa marka tirada loo eego way badan yihiin haddana wali fardiyada dalkeena ka dhacaa mudanayaan way badan yihiin sanadkii dhamaaday maxkamada waxa soo gaaray 4824 dacwadood maxaakiimteena tiradooda waa taqaaneen iyo shaqaalahooda waxa ka badan inta meelo kale oo ama xeergeed hoostii ama waadada diinta islaamka shariicada ay gaar u qaadeen oo dadku qanceen oo laga yaabo in inta ka badan tahay dacwadaha dalka ka jira dacwadaha intoodii badnayd boqolkiiba 80 iyo dheeraad way dhameeyeen maxkamadu waa ku mahadsan yihiin way ka garsooreen inta hadayna sanadka inta soo dhameeyay waxaanu qaraynaa in dadaal badan u galeen maxaabiista inoo xirmay marka tirada dalkeena loo eego way badan tahay waxa xabsida maanta ku jira soo xasaaka 2904 maxbuus tirada ay mahayna waa taqaan waxay u badan yihiin intood badan dhalinyaro aan gaarin 30 ayay u badan maxaabistaas halka wax qiyaas kartaa hawsha inoo taala maxaa dhalinyarada in xabsida geeyay afar dambi ayaa u baahan inuu isu taago oo u baahannahay mujtamac ahaan waxa nagu soo kordhay weeyii way nagu soo bateen waxaan u baahannahay inaanu si dhab ah ugu soo jeedsano ka koobaad waa dambiga kufsiga waxa soo gaaray xeeraalinta 142 kiis oo kufsiga sanadkan dalgudiisa waxa la hubaa in inta libalaabkeed ama in lagu yaraan ama ka badan aan soo gaarin xeeraalinta oo la qarinayo oo qoyska u qaba taabuu balaa dhacday oo aanay soo saari karin wixii dhacay qofkii ku dhacay nasiib darrada waxa weeye gabadhii waa la hayaa oo waxa leeyahay gabadhan ilmaysa waa way gaftay laakiin ninkii waa libax lama hayo u qaynaya cidina dooran mayso yaro shaqada kale oo baahan tan lahay golayaasha qaranka oo isu dhan maanta maxkamaddu waa fadhida inuu arintaa xoog weyn saaro si loo hortagi lahaa waayo waa waxayna dhaqan lahayn waxaan u badayay magaalooyinka inkastoo miyiga uu jiro kiiska labaad ee u baahan inaynu aad iyo aad uga feejiraan ugu soo kordhay waxa weeye mukhadaraadka waxa u xiran baayic mushtaray ka baayic mushtareynayeen waxa la yiraahdo mukhadaraadka 535 qof oo gobolada dhan ma ha ku cabay waan ku celinay waa inta ka baayic mushtareynaysa waa masiibo loo baahan yahay inuu soo ogaano oo laga hortago oo wali ugu soo badanaysa saddexda kiis waxay u baahan yihiin labada kiis in dib uga fiirsano si uu xoojin lahaa loo hortagi lahaa laba ka saddexaad waa baabuurta sanadkan dacwada baabuurta shirka dhacay waa 302 ilaa 100 qof baa ku dhintay tira ka badan ogaada koonfurku wuxuu laga dilay kontameeyo baabuurta waxa laga dishaa boqol eerisku wuxuu laga dilaa waxa boqol ka yar baabuurta boqol bay laga dishaa bilow waxaanu baarnahay dawladdu ama wasaaradda hawsha ku leh taraafikada iyo gaadiidka in badan baan ku leeyahay hatta waxa gaarsiinay gaariga limidkiisa in la xiro oo mishiin la saaro ay dawladdu lacag sameysay waxaanu gaadhay in baabuurka wasaaradda wasiirka ama wasiirka xigeenka ama xafiiska warshadu uu og yahay baabuurka meesha marayo waxaanu soo saaray qalabkii lagu ilaalinayo baabuurta ee markuu soo dago baabuurka ma socon kara ama bixi karo inta waa soo gudbay soo dambeeyay waan ku gareynaa laakiin maxaa ka bedelay dadka ma bedeli karo dadka ma bedeli karo gaariga ninka cid u dhiibayo baabuurta waxa soo bedelkood waa gaar baa loo leeyahay ama baa mushtar haddii la soo eego khasaaraha dawladda berigii hore dawladdii hore aan soo gaarin dawladdii hore inta ila midka ay soo gaadhay waxa loo jiray maqaadirsi war maanta ciidanka maqaadir ma aha oo noqonaya ciidamada wax jira way yar yihiin maqaadirtu waa private waxay bayday baabuurta wada private ka baabuurta ay baabuurta baacmis ku yartay
weliba ku baacmis ka waxa ka sii baabuurta gaarka loo watay yaryar baabuurta leedahay mas'uuliyadda waxa leh cidda baabuur kale iyo ubadka wada iyo qofka loo dhiibay wacyi gelin baynu baahannahay guriga ka soo bilaabanta oo la ilaaliyo dadka naftooda la ilaaliyo si aynu u yarayno shilalka iyo xabsiyada waxay u baahan tahay inaynu saddex qodob eegno qaran ahaan qorshahoodii dowladdu way soo dhigtay NDB-gaas ku jirtaa sanad 2030 halka dugsireena waxa ugu horeeya inaynu saboolnimada hoos u dhigno saboolnimada inaynu hoos u dhigno mar walba uu ka hadlaysto ka sano su'aashu waxa weeye waa hoos u dhigi karaa ha lacagta dalka soo gasha ama xoolaha dhaqaalaha sakadeedu haddii la isu geeyo si fiican loo maamulo sanad walba 10% hoos u dhigi kartaa isxisaabiyeedu inuu la isxisaabi haddii dowladdu lacagta haysta ku waajibto waa ta ay ugu shaqeysaa adeega oo banaanka taala idinka ay gala xisaabtamaya oo abba golayaashii hanti dhowrka baaraya idaacadda martaa kajaraadka faalaynaya mucaaridka hadaba taagan hantida qaranka dowladda 10% bay kala sheekaya sagaashanka kale ee qaranku haystay barkad leh ee xoolo ee taajir leh ee doomi kalluun leh waxay u baahan tahay in la fikiro oo la isu geeyo hantida dalka qaranka joogta in loogu tala qayb kamid ah in lagu yareeyo faqriga sii kordhaya ee carruurteedii 500 ay ugu xirantahay baacmiska mukhadaraadka boqoloodu dhanayaan baabuur iyo taraxum mas'uuliyadda koobaad xukuumadda golaasha saaran tahay iyadoo qorshana waa la idin keenaya golayaashana ka dawlada doona dadweynaha waa inay hoggaansamaan talabaad waxaan u baahanay wacyigelin dhibaatooyinka iyo solutionka iyo sida loo xaliyay aan soo dhignay waxaan u baahanahay inaynu galno tabliiqi dadka aqoonta leh sheekh iyo professor PhD sita iyo ilaahay aqli siiyay iyo abwaan inaynu dadka ka waarayno dhibaatooyinkan inagu soo isboorada khatarta sida maandooriyaha iyo kufsiga iyo wixii lamid ah saddex xukuumadda waxaa ku waajiba inay xoog dheeraad saarto la dagaalanka xashiishada kufsiga iyo dilalka iyo controlka baabuurta dadkana gacan bay uga baahantay waana go'aan waana ku dhaqaaqnay waana qaylada ugu badan gaariga dila 10 qof ee inuu ciyaar wado marka la soo xigo stage-ka intaanu iman suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkii baa cararaya annaga dambeena adeeriska isla kan dadka ciqaabo marka ay reer bulay ninkii kiiska wala cararaya wax ku soo qabiiladu waa la saarafu isku dulmina laba orod isku xoog sheegtay marka waxa dambiile waa dambiile war gaar qalin war nin buu diru amdan toogto imka la haya waa la wada cararaya tayna isku waa gelin baynu iska baahnay xukuumadana lagu xoojiyo waa in ay gacanada ka qaada waxayna tahay warankii dalka haddaan intaa ku dhaafo doorashooyinka Somaliland waxa lagu majeertaa oo Ilaahay mahadiyo maanta inay tahay manطقadeena ku noolahay dalka qura ee 19 sano u dambeeyay ay dimuqraadiya ka hirgashay dimuqraadiyadeena waxa lagu dhaliilaa golayaasha muddo dhaafa laakiin taa waxay ka dhawaayin dalka taa inagu qabsanaya kuwa lacagta lagu dhuraayay ee adduunku taageero ee budgetka badan leh ee malaayiinta la siiyo ee jibcad qurwaxaas la joogto doorasho qura ma qabtaan qof iyo cod ma gaaraan tii qabiilka isu soo ureeyay lagu taaglaay war hadaan ciidamo taageerin oo ciidamo aqoonsanayn oo dhaqaale cid lagu siinin oo dhaqaalahaygu kooban yahay oo golayaashayada iyo systemkayga aan u dejisanay markaanu qabsan karayno qabsano markii muddo dhaaftana aan leenahay sharci aan isla ogolahay oo ku gaadho muddada ku bedelayno wax dhaliila ma laha laguma eedeyn karo hadda markaan lisanska waa qabanayna ayaa waxay aad ka dhigaan way daahsanay inta ay daahday may daahina goryaalu ba shaqeyn lahayd dantayada seegtay goryaashu may diidanay ka caane tamartayda inta ku xidhay idinkuna ma yaa caawin dhawa aan kartaa maanta doorashada waxa ka hadhay 3 state waa ilaahay mahadi waa isla wada ogolahay in doorashada maanta inoo dhacdo waxa kale dhammaanteen isla ogolahay oo inaan isku diidanayn
oo inoo ballana inay noogu dhammaato nabadgeliyo iyo xasilooni waxa inoo ballana qofkii wax tirsada khilaaf tirsada inuu si nabada u doono wixii ka maqan loola garab galo taasaa inoo ballana wixii intaa ka duwan heshiis kuma nihin waa qof qarjax kow maanta ciidamadu waa diyaar komishanku waa diyaar xukuumadda miisaanteedu waa diyaar ilaahay mahadi baynu joognaa taladu waxa weeye inaynu si wanaagsan hawsha hore ugu qurux badan waxa sharaxan oo haddii la yiraahdo maanta golaha taagan 900 iyo 93 murashax hablu waa ku yari waana waqti la wadaro dal waliba soo maray taa isku canaanayno waa wax la baran doono oo socdo laakiin waa ku jira waxaynu ognahay oo maanta Somaliland qof waliba garanaya inta dhacaysa ee kursi heray inta kursi u soo baxaysa hadda halkan fadhiya dhammaanteen waa soo ogol waxa soo bixi doona 3 meelood marka loo qaybiyo meelaha 2 meelood oo dhacaya waxa dhici doona 600 dheeraad waxaan sheegay murashaxiinta lacagta bixinaysa ee dadka abaabulaysa ee jaranjarada adag maraysa ee imtixaanka la maranayo maxaa taqaanaa taalintaada soo mar dambi miyaad gashay soo mar miyaad wax lagu haystaa ee meel walba laga soo baarayo ee dhibta inta la ka soo gudbaya ee xisbiyada dhexdooda ka soo gudbaya ee deegaanada ka soo gudbaya inta soo hargabayo horta waxa dawata shacbi iyo xukuumad ahaan inaan u hayno dadkaas inay yihiin dad milgo iyo aqoon iyo qadarin iyo xilkasa dadka intaas warxad ka soo gudbay sharafna waynu hayno laakiin waxa xaqiiqo ah oo xeer inoo ah oo isla ogol lahay in ay soo baxayaan 300 iyo 600 ay dhacay waxa inoo ballan waxa la yiraahdaa farafiyo waa xeer samaysta iyadoo xad cimro la sheega waxa xeer kuna inoo sheegaya oo isku talagelaysaa oo intaas oo dadaal maray haddii nasiibku ku reebo inaad qaadto qaato oo aanad waxaanad xaq u lahayn oo nasiibku ku reebo aanad bulaan iyo bulxan iyo qaylinka waa balan inoo taala waayo imika waa ogtahay dariiqa aad maraysaa khatartu leeyahay qolada kubadda ciyaarta waxay dhalinyaradu kubaddu waa bar cad iyo bar madow awrigstaay mooti dalkii kalees dee siyaasaduna waa haa iyo maya wala kursi cod baa ka doonaya ma siinaysaa haa ya qaado waad soo bixi maya waan ku diiday waad ka tegi marka murashaxiinta waxaan u sheegay waa soo weerinaa waa dhici jirtay maanta radikeedu kuma horeyso inaad ku tala gashaan inaynaan bulaan iyo buuq iyo wax ka badan inteena soo xushay ee deegaanada leh ee xisbiyada leh ee golayaasha leh ee xukuumadda waxay nagu waajibaa qofka xaq uu leeyahay ku doodaya inuu si biiliya ugu doono oo lagu hubsaday uu xaq leeyahay kale qofka qardajeexaya ee qofka badan ila qabto oo la wada gargaartay joog ayaa inoo ballan taas ma ku arkaa nabad taana intaas kaga tagay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay nabadgelyo iskaashi iyo wada qabsi caalamka oo dhan iyo dariskaba soddonkii sano u dambeeyay fagaaro kasta oo taganiyo dawlad kasta oo hadala waxay nagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal Afrika ah midowga Afrika iyo Afrika ayaa anaga nooga farquluban qaarada tagtaaba ama daacada ka ahaato ama gar ha ahaatee muddo taa lagu warjoogo saadarteed waxaanu qaaday jidka ah in Afrika laga hawl galo deetana sanadkii u dambeeyay xoog badan baan saaray Afrika san ugu yeeran lahayd saaxiibo cusub waxaan ku buurisay inaan dhammaan dawladaha Afrika horta waraaq qoraal ah oo u sharxaysa Soomaaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay ay ku cadahay inaan u diray dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika management dhammaantood ay heleen waxaan naga soo noqday in naga absi waa jirtaa in badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad inta ka badan oo u baahatay tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibo ku qancay ama hore u ogaa inay Soomaaliland xaq u leedahay aqoonsiga dawladooda aanay ahayn boos iyo waxay ku fadhidaan
in badan oo ogeyna taageeraynu ka helay walaalayaal waa ogeydeen marka aynu safar u baxnaba colaadda xamar ka bilaabata taa dib baan kaga hadli doonaa afrikada aynu xudxudanaynay ama aynu u warramaynay waxaynu xoog saaray waxay ku soo dhammaatay oo afrikada ku riixdaa mar walba idinkiiyo soomaalida hadda waxaanu ku dhahaa gar ma aha nintiisiiba u taag waayo tashan waaye oo isaga tawsiifoodo tahay dee hanagu xidhida idinba kan caal weyday waa ay noqotay qasab in laga hadlo wada hadalladii innaga iyo xamar naga dhexeeyey muddo taagna baanu dib bilownay wada hadalladaas waxay ku dhammaadeen halka maray waa ka degsantii waxaa walihii noqday oo weliba qolada xamar ay doorteen annana aanu ku raacnay oo naan diidanay markii horena in jabuuti lagu qabto fagaara lagu hadlayo shirkaa waxaa waday maraykanka oo weli dedejinayay shirkaa qolada jabuuti waxay ka ahaayeen gogashay dhigeen jeerkana way hayeen waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jabuutiba inay si dhexdhexaadnimo ah oo waayarnimo shirkaa ku hogaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wixii u leeyimid ay si wacan meel isku cabiri karo lagala dhegeysi karaa u dhigeen wixii ka dhacay iyo siduu ahaa idinku celmaayo oo goobjoog u ahayd waxaa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo kubilkayga u haysaanoo idinku celmaayo taa waxaan u sheegayaa waxaa ka horreysay geni oonu sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu la mid ah oo ka dhargsan aqoonta Soomaaliland dhibaatada inay u tagnay haddaba walaalayaal waxaan wada ognahay oo inaan isu sheegeen imika laakiin u baahan inaan isku siino marka ay Soomaaliya maqasho Soomaaliland dal baa casumay ama dal ilaahay meelo sheegatay waxa la yaab leh cadaawadda iyo naca iyo talaabooyinka ay qaatay iska jira xorka waxaan isqabanayn marka ay hadlayaan ay dood keenayaan soddonkaas oo caalamka dhageysanayo waxay ummadda u sheegaan Soomaali ma kala maaranto walaalayaal waan idin baahannahay dad isku mid ah waxaan weydiinayaa ninka bilga ku ogolaan waayay xaashaan lili ka xasi xumi waaya nin baa ku sooriyay nin baa ku kalaameeyay dawlad baa hadday walaalnimadu jirto ay xamar ragga ka taliya sheegayaan ninka walaalka kalaameeya ee sharfa adigana ku sharfay inaad ma hadlaqdaabahay laakiin waxay moognahay wixii dhacay ninka Soomaaliland kalaameeya ama wax la qabta inuu ilaa waan ku dagaalamaya oo cadaawad baa ka xiga Soomaaliland waxaan leeyahay warkaayo qoladaas kuma dhacayo dawladaha ina kalaameeyo wuxuu ku dhacayaa waa inaga dadka waxa loo quuraya waa Soomaaliland waxaynu doonayaa inaan u sheego Soomaaliland maanta waliga Soomaaliland muqdisho dadka ka taliya shacbiga muqdisho iyagaaba afduuban dadweynaha muqdisho way ogyihiin waan arkaya waxa dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalnimo ay isu keenaan talaabooyinka ay qaadaan waxa weeyto aanay Soomaali weligeed isku imanay iyo cadaawad weligeed aan la kala geeyin iyo wax aan la isu quurin hebelow ninkaas aad salaantaan walaalaanahay milga iyo sharaf iyo bogaad buu ka muddo وأوجس كيري وحكي دعي وأركز وحكي دعي قريب شوتي وحكي دبي كتب يسوي وجدي شركة قبضتي يقول يبتين هذا ودي أي بوجي يستوي واحد بوج سري أن درنا كيري وجدي هذا حاب ضبط شوتي بحوالي شوتي كرصاروها وفتقوا دم هذا سلام بنا وده وين وفتقي سعود نح إلهي سكنيتها مالك ولا أنا عن قارن موسى فقاره نقول واحد ينسى شغالي haddana waxay ka dhacay damboodbay waxaan taa ugu dheeraanay maanta muqdisho dawladdii hore waqtigeedu u dhamaaday dawlad cusubna lama dooran sharcina uma kordhin haddana waa fadhiya waa maamulaya
Soomaaliland waxay diiday oo markii ay madaxtii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbiday inay gaar u tashato oo tii halka cirkii arkay kama soo jeedaan soddonkaas sano waxay arkay wax la shaqay kara ma hadday soddonkii sano iyo gaar u baxday ninka maanta muqdisho jooga waqtigiisa uu dhamaan sharciga loo kordhin waana xukuma qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo kamida oo mar walba idaacadda laga hadlaa waxa la isku haystaa baarlamaankii gobolada waqooyi matalaha cidda soo dooranay cadaawadii hore iyo tii hore dhacdo waxa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halka baarlamaankiisa fadhiyo ee dawladdiisa fadhiyo ee ummadiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof waliba maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka bal sababta xamar looga oranayo baarlamaankii matalaha baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hal ay sheego shacabka xamar iyo dadweynahoodu iyaga aaba aftuur hore war sheeg waxaan u sheegaynaa caalamka waliba xubnaha xamar la jooga ee muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halka ay ka joogaan xamar maanta ma dawladda istaa waayo ma iyaga u taliya ma kii dhacay baa haysta ma cid kale loo dhiibay waxaan u sheegaynaa waxa gardarro ah in xitaa kuwa caalamkuna u dhageystaan ay ka dhageystaan oo ay ku ansixiyaan boqol oo baarlamaan laga soo doortay iyaga laftooda qayb ka ah gardarrada soo doortay waxa ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka Soomaaliya ee Soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda la noo tali nin dalkiisa ka fakadka ah waradina idin turi maayo wax idin maayo kana uu ka fakaday marka iyaga laftooda say u aqbalayaan waxa cod idin sina wax idin dooray wax idin bedelaya niman cidna ma tiri qolada Soomaaliland u dhalatay ee halka wax ka deeysan waxaan leeyahay idinka ceebid ku tahay xaga laga doortaa ceebid ku tahay midba deedaysan midba xaga u marsan ma bari hidda lagu doortay halkaad wax ka tagnaad wada ka caray taana wax ka tarimaysa waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagu dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxa inoo galay waxa inoo fudaatay in la yiraahdo waa habar uu ka soo noqdo afis uu doonaya taana la soo hor qaadaya waa nin weyn oo dalkiisa ku soo noqday hala saamaxay hala saamaxay haddana uu noqday kii la saamaxay baa noqday mid ka taliya meesha aqli ma qarnimada meel ka dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kii baa lagu dhaqayaa ku talagalay waxaa loo gudbayaa qaramada midoobay jimcada qurba ka dhaxaysa waxay ku dhisan tahay oo mabaadi'da koobaad tirarkaas sida laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini'aadamka inay ixtiraamaan ayaka tashiga ummadeed Soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sano u dambeeyay jimcada qurba ka dhaxaysa say sagad inda tirayso qadiyada Soomaaliland oo guriga baar ogtahay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay Soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin Soomaaliland sharciga loo aasaasay oo garabarayso waayo Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa qaatay markii ay duntay dawladdii midnimo qaran lagu heshiiyay 60kii ay labadii dawladood ee xorta ku kulmeen markay duntay Soomaaliland iyadoo isu dhan masiirkeeda inay gooni dawladda u dhisanto oo 60kii soo celiso 18kii May 1999 jimciyadda qurba ka dhaxaysa way ogtahay xeerkii hore lagu midoobana way ogtahay Soomaaliland waxay histo tahayna way ogtahay iyadii Afrikiiba muran kama jira inay oo waa la wada ogyahay Soomaaliland inay ahayn dal goosanaya oo dalka go'aya hore u dhacay taasoo kale Senegal iyo Mali way kala baxeen Gambia Senegal way kala baxeen Masar iyo Suuriya way kala baxeen sababta Soomaaliland ay indhaha uga qarsanaysaa jimciyadda qurba ka dhaxaysa iyo xubnaheedu ee looga ku heshiiya maanta waan weydiinaynaa ninka matalaad jimciyadda qurba ka dhaxaysa James Wan ee jooga xamar halkuu ilaahay in midoo heshiiya isaga maamula isaga la heshiiya yaa maamulaha la heshiiya soddon sano cid ma mushamar meeshu cid heshiiya labadii dawladood
ay ka duntay TPS markay kala baxeen Soomaaliland waxay qaaday jidkii nabadda dawlad dhiska dimuqraadiyadda iyo dawlad dhiska qaaday dhinacii kale wuxuu qaaday dhinaca fawdada iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo ishaysiga aan dhamaanay waxa la yaab leh dawlado badan oo maanta dawladda way magac ku leh ayaa waxay ku daldalaan xamar dawladda xamar maalin walba hub iyo lacag iyo awood diblomaasiyadeed waxa isweydiin leh marka laba dawlad ay ahaayeen ay ka duntay dhexe ay kala baxeen dawladaha caalamka iyo jibcada qurubaha ka dhaxaysa ee billions waxa la 100 bilyan baa galay Soomaaliya ilaa 1990 100 bilyan Soomaaliland bilyan ma galay wax emergency aan la siyaanay ciidana loo masruufo baarlamaanka loo masruufo qadiyada dawladda loo masruufo intaba alxamdulillah shicibkooda isku tashadoo haddana waxa lagu dardalaa inta waxa la qaar baa hub ku dardalaya oo darkiisa waxa la isweydiinayaa Soomaaliland isweydiinaysa oo jabcida quruxda soo weydiinaysa iyo kuwa taageeraya ma waxa la dawladdu caalamku uu taageeraya fawdada iyo dagaalka iyo qaraxyada iyo burburka mise wuxuu taageeraya cidda jidka hayaysan qaadaya dhismaha iyo waxbarashada iyo dimuqraadiyadda su'aashaana waxa u jeedaa jidka quruxda waxaan ku soo ururinayaa hilaadinta iyo u diyaargarowga mustaqbalka Soomaaliland aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaan waxa muhiim u yahay wanaajinta nololeed ee mustaqbalka dalkeena iyo caruurteena dhibaatooyinka dadku abuuray sida khilaafka badan dhuxulaysiga iyo dhirta la shaqeeyo oo abaaraha horseeda ceshiimooyinka dhulkii xooluhu daaqayeen in walaba intuu awood leeyahay xidhay dhulboobka magaalooyinka ka socda ee meydka meel lagu aasan leeyahay meel ban ooti way wajigada ay ku dagaalamayo isbedelka cimilada ee Ilaahay keenay tiknoolajiyada casriga ah oo waxtar badan iyo faa'iido badan leh laakiin hadimadeeduna aanay yarayn oo aan adeersi lahayn dhibaatooyinka aan soo sheegay waxa ayna tusayaan in ay inoo taalo haddaynu Soomaaliland nahay oo dadka maanta xilka haya aynu nahay hawl ballaaran oo u baahan inaynu waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan gelino dhammaanteen oo kala hadlahay xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta waxa ku waajiba inay ku dadaalaan inay keenaan oo marba hirgeliyaan sharciga iyo wadada la marayo ku toosan hadba xaaladii taagan Soomaaliland markaynu soo koobno haddaad isweydiiso qofka Soomaaliland daa kasta hawo 10 sano ka bacdi maxay doonaysaa sidayna u ekaatay doonaysaa Soomaaliland maxay doonaysaa oo run ah oo gaari karnaa waxay la tahay dawladdu jawaabta waxay kaga jawaabtay qorshaha NDP2 ka labaad ee ah Soomaaliland 30 sano halkay noqon doonto oo ah Soomaaliland waxay doonaysaa in ay noqoto dal dimuqraadi ah oo sharciga lagu dabaqo sharcigu nabad ka sareeyo nabadgelyo ah barwaaqo ah dadkiisu ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay oo qayb qori lahayn oo aanay ladnaanta in yar ku koobnaanin iyo inay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka soo dhex muuqda Afrikada madow oo dhan iyo adduunka taas waxay nooga baahan tahay inaan sukan iyo laaba ugu hawl galno inaynu gaadhno higsiga iyo himilada hirka faka muuqda aynu tiigsanayno waxaan ku taagi karnaa inagoo si dhaba iyo uga hawlgalno shacabweynaha Soomaaliland waxaan u rajaynayaa guul waarta barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan mar kale ammaan iyo bogaadin u diraya golayaasha dhawaan xilka wareejin doona golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaa caana jirta
عاينة وأروس كلا أماننا أودمو نكستول عاي ما أنت بتولى بدوه يا الله هبل بوهاي نكستول أمانة ما أنت أروس اللواي ما يوحنا الشيء ولا لا أنت أقولها فريدين أروس واحد روان عايني ما أنت ما يقدر يقول لك إحنا كذا بنيسان وانو إذا شيء قلنا أمانتني وحقبتين ذلك هو سواقستين إن كستاه لدي الماضو إن كستاه حضوري هاي لهذا واحد بدن باقبتين وأنا بنا نجيب وما جري ليش يتركك هديده وراكتين وحاليه وإذا أنا قلت تجين وقلاش تجين وأيام ذلك قلت تجين وأنت أنا كراسيدني نبنا يوم تكون ماجنا حدنا أنا لين هاي ولا يدين بهاي تجينا ويا أنا ماذا لو يتوصل نوضع إيش أقولها ذلك ما تهديك هو عارس وحب بهاي ما جرسه شرعية ما جرسه نك عصوي بكرة صوت ورتي وحياة صوت شحذين ودم ودي وجهها حتى دارس كلام تاجين وإذا عرض ما يتنه وراء أمريكا ده ترين مرين ده كنا ساس بحقوق مسامة مركو قفك وارق وقفك لا بجهل لكن كلمات كتشوي خير يحفظ ظروفين يكون والله أيام الضلين إلا يوم ويارق نبض الله منه حل كسول هاي ولا دم تاجي حل كسول قف لوري ولا دم تاجي تين بدم وتشوي بالنية قارب وراي دريه بالبريا أحمد من ريه بالقولج ورد دول ساكن اسمه وحي أهين وإنه جارد إن شاء الله إلا هذا قراها وكيلة إياه كان جورتي إياه قراها كسر وإنه يكون كله بدله إياه برنامج ولا برنا لا بس اللي يحد بدله وكل ببر ويارك سيف اليوم سأنور الرول من ذي يمر والبا لكن دقق إنه مرينا هي تالك أذار هاي أيام ما تا إنه مرينا هاي إن قريه دما نقريه دب السوشر أنت هروله هاي قريه دما ما هو ولا جناعي ما هو حمايسين واحد بدل ما أدرك سوق بتين إذا كي يكون دولة وسوي كم هذا غناه واحد سوى وينه واحد سوى وينه يا قلاش عصوا سوى بحضور هرت إلى هالقار خير الله ينورهم ويرجعون ولا دول شوي نكف وير ميسان نينك أشرحي أنت أصلا صوم مري واحد امتحانك سوق بي طبعا وقف الكسة قدرين له سؤال بلوسه بيجينا إلى هذا الكيس الله هو فضي هوشة وين سؤال ويننا وحنا مدن بيسينا يا وأقوم مدن ما أنت هو سديد دي مارش ومعرفة ومعرفتي هو وين هادو كورن أي lahaayeen ay u dabaal degaan oo dumarku inay dhibaatooyin badan oo xuquuq badan oo qaar aad u leeyahay ay ka cabanayaan haweenka muslimka inta badan diinta waxooda u goysay iyaguna waa ku raali laakiin cabasho badan bay inoo sheeganayaan oo daw ah oo aynu wada garaawno laakiin haddana aynaan inta badan ka fulin haweenka Soomaaliland iyo haweenka adduunyada waa hambareerina waa maalinta 8 March waxaan u rajaynaynaa horumar iyo xuquuqaha ay wargamayaan ee diinta islaamku ogoshahay dhammaantoodba inay gaari doonaan waan ku garabay halkan waxaan uga ducaynaynaa maanta shalay magaalada Shilba ka dhacay aqal ayaa gubtay guri ay ku jiraan arday 200 iyo dheeraadihi aad iyo aad baan ugu nasiib badan Ilaahay badbaadiyay ciidamada dadbiskana waa gurmadeen booliisku carruurtaasi guri fooqay ku jirtay waa la wada socotaan sida wax u dhaceen Ilaaha aad iyo aad u sahlay carruurtii wada nool yihiin wixii gaaray waa dhaawac oo aan waliba badankoodu in yar mooyee ay dhaawac fudud yahay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhaawacana inuu caafimaad degdeg siiyo aad iyo aad baan carruurta ugu ducaynaa Ilaahay caafimaad siiyo Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inay noo soo wada badbaadeen waxaynu ku daraynaa in laga digtoonaado meelaha dadka badan lagu ururiyo waxa weeye waxaan ka dardaarmayaa in meelaha iskuulada cusbitaalada qodobada dadka badan ku shaqeeyaan dadka mulkiilayaasha aheelay inay ku tala galaan waxyaalaha laga maarmaanka waxa ugu yar meesha dadka naafada ay marayaan waxa ugu yar haddii wax dhacaan wax laga baxayo waxay u baahan tahay waxyaalo badan in dhismaha
la iska xilsaaro ugu dambayn waxaa lagu jiraa kariishii kulayd ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu abaarta naga soo jebiyo ilaahay rabbiga adun baan ku baryaynaa addoommahaaga gacmaha horsanayaan qadin ilaahay roob degdega oo barwaaqa oo sariicana oo dhibaato lahayn baan kaa barin cimri wanaagsan iyo caafimaad baan kaa barin naxariistaada janno aakhira ayaan kaa barin inta mutana allah inoo shaafiyo dalkii dadka waa allah inoo barwaaqayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu